الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا ودرسي اللحاد وكمل دروس امتحان أو تلقى بشهر رمضان درسكم أنت وحكوا سابسين مقلات الصيام وحيابها صون كبورية أنت أنا نقلين وحيابها صون كبورية مسألة كصارصن السحورتا هذه لا أدم أما مقدمك وأدمها يقدمك الضنباء لما السحوران كراه أضينا أن قلنا شرعا صون محل دعاء علماء وحيليهن الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية وهو يقف إنه أفهيسته وحيابها مفطرات كوكا أفهيسته صلاة الصبح مركا يدلته إلى قرحة انتهي كدعض أصلا مركا نية سنة يصوم الله تبارك وتعالى قرآنك وحكوله وكلوا واشربوا عنا وعب حتى يتبين لكم لا إذن كعضاله الخيط الأبيض من الخيط الأسود ليلا كعد يا ليلا كمدو أو صلاة الصبح oo markaa salaada subax waxa laga hadlayaa dhalashadeeda waana xilliga muadinka uu adimo adinka dambe hadii mar salaada ay dhalato oo muadinkan uu adimo waxa weeye qofku waxa ku laazimaya inuu afhaysto cunada uu ka afhaysto hadith ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم إنه وشجع يبحليه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم بلال وحادمها يا أدمك هبينك habeenka ayuu adimhayaa bilaal waa adimka hore ayuu adimi jiray marka bilaal wuxuu cuna wacaba ilaa uu ka adimo ibn maktuum Abdullah ibn maktuum ilaa uu ka adimo oo wuxuu adimi jiray adimka dambe waa xilliga salaada dhalato markay salaada dhalato waxa weeye qofku waa inuu ka afaysto cunada uu soon markaa niyoodo ama hadii adimka la adimhayo waxa ma cuni kartid jamhuurul ulama waxay ku tageen arrinkaasi oo ah qofka mar haday salaada dhalato inuu ka afaysto cunada masaladu waa intaas khilaaf yarna uu ku jira oo ku saabsan qofka hadii lagu adimo asoo cuntada cuni maxaa xal u ah khilaaf yarna khilaaf uu ku jira waxyaabaha hadaan u galo soonka buriya culimadu waxay u qaybiyaan laba qaybood ma yubdilu siyaam شيء صنك بوريا ويوجب القضاء قضانا قفك كواجبية iyo shay soonka buriya oo qofka qadana uu ku waajibayo kafaara laba shay ba ku waajibaya qofka qada iyo kafaara hadaynu ku hormarno waxyaabaha soonka buriya qofka ku waajibayo qada waxa weeyaan al-akl wa shurb aamidan qofka si oo la kac oo kas haduu u cabo cabitaan ama cunitaan uu cuno waxa weeye soonkiisa uu buraya qada ayaa ku waajiba qofkaasi ama asoo halmaansan haduu cabo cabitaan hilmaam uu cabo waxa weeye qofkaasi soonkiisa waa saxiix man nasiya wa huwa saa'imun fa akala aw shariba soonkiisa uu dhameystiranaya ilaahba xadiisku wuxuu ahaa inma at'amahu Allah wa saqa ilaahba cunasiyo oo quudiye qofkaas oo cabitaan siiyo qofkaasi waxa weeye soonkiisa uu dhameystiranaya مسألة حقة وحوي إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس قفك هدو عبو أما عنتان أو عنه أما حاسكي سوءته وأصلا مرينها يعني قرحة دعبه محا حلوة علماء لو مذهب يسوء خلافين وحيليهم جمهور العلماء قفك أسي قدر على غرب قدر وكوة جمعية سنكي سنة وبورة وحاكمة جهو مذهب الثاني مذهب كاللباض وكجر وحوية ومذهب وحيليهن قف كاسي وحيكم واجبين أدلة بدن بين إليهن وهذا مدى مذهب قوي أو حوق بدن بعد مدى مذهب كاس ومذهب إسحاق رواية عن أحمد وداود وابن حزم وظاهري وأنا إمام المزني وبه قال المزني من الشافعية إمام المزني وقع بقول كاس وإن وحيل لقربين وقضى واجبين شيخ الإسلام ابن تيمية أنا سيدا أيو دوران حيا أدلة بدن بين إليهين وحيابها صونك بوريا قفك واجبها هي قضاء وحاكمة قفك عدو اسك منتجيو أما أفك عنت اسك جليو ومنتك ساعة كينا وحكو واجبها هي قضاء وكو واجبها هي ama haduuna iska mantajin umanta iski ooga imaado waxa weeye waxba laga marabo qofka
waxyaabaha soonka buriya waxaa ka mid ah alxayd walnifaas. qofta dumarka ah haddii markaasi uu ku dhaco dhiigga caadada ama nifaas dhiig dhalmeed, waxaa weeye soonkeeda wuu burayaa walow fi laxdati alakhiira min annahaar. saacado yar ayadoo ka dhiman afuraadka haddii uu markaa uu dhiiggii caadada uu ku dhaco, waxaa weeye soonkeeda qada waa ku waajibhayaa biijmaaci alculamaa. soonkeeda waxba kama jiro. waxyaabaha soonka buriya waxaa ka mid a qofka hadduu iska keeno biyo, hadduu iska keeno mina, hadduu iska keeno asoonan xaas jimaacin, sida inuu gacanta isaga keena waxa lamidka ah, waxaa weeye soonkiisa wuu ku burayaa, waxaana ku waajibayaa qada waa ku waajibayaa qofkaasi. waxaa ka mid a qofka inuu niyeysto afur. hadduu niyeysto afur, waxaa weeye soonkiisa wuu buri, lianna rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu dhahay likulli imri'in maa nawaa. qofku isa wuxuu leeyahay wuxuu niyoodo. hadduu marka niyoodo inuu afuro, waxaa weeye soonkiisa wuu burayaa qofkaasi, soonkiisa qadaana ku waajibhayaa. waana madhabu shaafici wadaahiri weeyaan, wadaahiru madhab axmed. imaam axmed madhabkiisana sida daahirka sidaasaad moodaa inuu qabo. abi thawr, culimo badan baa qabaan. waxaa ka mid a waxyaabaha buriyo soonka arridda can alislaam ciyaadan billah, ilaah baan ka magan galnay. qofka hadduu gaaloobo uu diinta ka baxo, soonkiisa wuu burayaa. allah tabaaraka watacaala wuxuu ku dhahay qur-aankiisa la in ashrakta la yaxbadanna camalku. qofka marka shirki hadduu la imaado, gaalnimo hadduu ku dhaco, camalkii dhan baa burayaa. camalkii hadduu burana waxba weyse uma dhowrano oo soonkiisa waa ka kac. marka inahaas aan kusoo koobi. majliska xigana waxaan ka dhigayaa waxyaabaha soonka buriya qada iyo kafaarana qofka ku waajibiyo. wallahu aclam.